السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلك أنا قد داونيسان وا جانا جلافور اوفيشال هدان ugu cusubtahay subscribe like share comment inta baa xaqiini walaalayaal Allah subhanahu wa ta'ala ayaa wuxuu gaarsiin kara qof walba meesha uu doonayo waxa gaarsiin karo Allah subhanahu wa ta'ala kashakoon waxa gaarsiin kara walaalahooda marka walaalaheena Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay taana subscribe like share comment inta baa inay ugu caawiyaan halka aad ka daawaneysaan waa Jana Galafoor official walaal hadaa hore in la joogto in like iyo share ta hanaga iloobin si aan u helno saaxiib adoo kala ah walaashayda daawaneysay adoo subscribe ii saarin ha ilaafin intaasoo aan waxaan ku helaa adna intaasoo ajri xasanaad aad ka heshaanayna aan dhiirigelin ka helnaa walaalkaaga aad caawiso waa wax muhiim ah marka xaasidnimadana ma fiicna walaalayaal runtii aad ayaan u tiiraanyeysanahay waxaan daawaday clip yar oo ah degmada Afgooye gaar ahaan xaafadda Embegati xaafadaas hadday u yartahay muddo 40 sano ayaa la degan yahay ama 40 sano aan dawladii cartay inay jeclaan Embegati waqtigii la asaasay xaafadaas waa adiga 20 sano ku dhawaad ayaa la degan yahay marka walaalayaal dad intaasoo sano meesha deganaa sida meeqaal nagu leeyahay beeraha meeshaasi waxay ahayd beerihii asluubta si oday hadda ka hor daayay cali soo wareysanay aan ka maqlay marka walaalayaal dawladdu markay talaabo qaadayso ama ay dad meel ka duminayso waa inay awal u heshaa boos ay degaan ama hoy ay degaan sida caalamka ka jirtaba hadda dhulkaas la duminayo maxaa looga baahday oo loo duminaa wixii kale ee dawladda iska lahaydba wax hadda maanta qana shaqeeyo iyo waxaana shaqeeynin way dad miskiin intaasoo sana deganaa ayaa ku nool oo muwaadiniin Soomaali wal muwaadiniinta miyaysan xaq lahayn aad marka dadka aad meesha ka kicinayso waa ina awal aad qaadaa aad u yeeshaa hoy ay degaan ama boos ay degaan hadaad barti aad ugu daba tagtay marka dawladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa masaakiintaas inaad gacmaha geel jiro hoos loo dhaqaaleeyo inay masaakiintaasi ay eegto hadday meeshaasi ay u rabtan dad awood leh ama ganacsato ah taas dawladdu way ku fashilmaysaa runtii way ku fashilmaysaa dadkaasi masaakiinta halkaas degan bal fiiri wacyigelin ma jirto ka tarbiya inta la soo qaaday qaababa mataqaana kii wax ka gaarsiin kara joodarigii iyo mataqaana maacuunti iyo caruurti ala carara yaa laga boobaa marka muwaadiniin Soomaaliyeed degan Ugandes meesha ma degnee muwaadiniin Soomaaliyeed degan yaa laga boobaa yaa se loo boobaa aan isweydiin horta waxaan isweydiin maxmed yaa laga boobaa yaa se loo boobaa waxaa mid kale aan shacabka Soomaaliyeed ee Embegati deganaa ee xoog iyo awood looga saaray Ilaahay baa awood iska leh Ilaahay yaa qawi Ilaahay yaa awood iska leh qof bin aadan qawinimo inuu sheegto waa mamnuuc ku sabra dibka markaad ku sabartaan aad dheeftan heleysaan saakiinta meesha laga kiciyay waxaan Ilaahay ugu baryaa bedelkooda khayr qab inuu siiyo walaalayaal hadalkayaan waxba idinku daarinin dhibaatada meesha ka dhacayso runtii calool xumada meesha leedahay wax yar hal daqiiqo ila daawada صاحب حلال كده ما دمر وحنا نقولدن والدمر وحنا لا ميجان إلا جيس كلا دمر والدمر ومد الإسلام كسيان بركع فيري سلام حقبة ويال شركة على شركة ريو مد الإسلام بركع على شركة ريو على شركة ريو مدن مدعبين نقصوا كان مدن مدعبين نقصوا كان هذا حقبه كتب حقبه هذا حقبه كتب مدن مدعبين سلام حقبه ولا شركة فيديو دقمة أفقوي وصير حسين الله قال هذا دقمة أفقوي على شركة ريو وهم السلام قريود على شركة ريو فيدي هم تسوي بركع الفيديو يا أودن بس
بس وابر ابر وابر دقمة افقوي وابر هلا الشرقري هلا الشرقري ودقمة افقوي وحسين على لقمة هذا ودقمة افقوي walaalahayga Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay dibka idin gaari Ilaahay dheef idin kugu bedelo bedel khayr qaba Allah idin siiyo dadka ka dambeeyayna oo dibkaas idin mariyayna hadii meesha oo yaani midqana ganacsato loo xoogayno inta ka dambeysana Ilaahay waxaan kaga baryaynaa wax muslimka qabin inuu wasiibo waana ku maasantiin daawashada aadna daawanaysaan qadarta Ilaahay lagu sabro والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.